بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشرة waxaa fiirinaynaa commands muhiim ah. Markii laptopka la isticmaalayo waxaa laga yaabaa software-rada qayb inay ka shaqeeyaan background-iga oo ay ka ran gareeyaan oo CPU-ga inaha ugu badan ay isticmaalaan. Sidaas si looga hortago waxaa la rabaa inaad isticmaasho taskbar aad iska xidho markuu laptopku busy noqdo. waxaa iska xidhisaa software-rada background-iga ka shaqeynaya. Si aad software-rada background-iga ka shaqeynaya sooga xidhno, waxaan imanaynaa taskbarkan hoosta ayaan imanaynaa, dan right click ayaan leeyahay. Right click markaan dhahno halkan ay ku qoran tahay task manager, taasaan click dhahaynaa. Click markaan dhaho shaashada waan iska weynaynaa. Xaggan waxaad arkaysaa CPU-ga iyo memory-ga inta diskiga ama background-iga ka shaqeynaysa intay cunayaan. Tusaale ahaan tan aan ku duubay hadda Camtasia waxay cunaysaa waa ka si fiican ayuu shaqeynaysaa, waa 3 iyo wax ka sareeya. Xaggana memory-ga inta ka cunayso 127 ilaa intaas MB ay cunaysaa. Kolka software-rada aynaan u baahnayn kaasoo kale asna waan ku shaqeynaynaa. QuickBook hadda maadaama taskbarka uu ka furan yahay asna wuu shaqeynayaa. Tusaale ahaan AnyDesk hadda waxba cunayaa, kan ma raba inaan iska xidho. AnyDesk waxaan rabaa inaan iska xidho, right click ayaan leeyahay. Software-kaad rabta inaan iska xidho, right click ayaad dhahaysaa, then End Task kaas ayaad ku dhufanaysaa. Meesha ayuu ka baxayaa. hoos ayaan u soconaynaa. kanoo kale asna AnyDesk asna wuu cunayaa, kana waan iska xidhayaa. hoos ayaan u soconaynaa, laakiin waxaad iska ilaalisaa inaad iska xidho Windows-ka kale. Windows-ka haddaad xidho shaashadu way madoobaanaysaa. Kolka Windows-ka ilaa dib loo shido inuu crash galana waa laga yaabaa oo crash garoobo. Kan hide folders-ka asagana ma isticmaalayo, laakiin background-iga ayuu ka shaqeynayaa, asagana waan iska xidhayaa. Right click ayaan leeyahay, End Task ayaad leedahay. hadduu End Task diido force ayaad ku qasbaysaa, kolka waad ku force gareynaysaa. hoos ayaan u soconaynaa. Microsoft-gaas oo kale asna wuu shaqeynayaa, asna waan xidhayaa, End Task ayaan leeyahay. saas ayaad ku wadaysaa. Software-rada xaggan ayaad ka arkaysaa CPU-ga intay cunayaan iyo memory-ga. marka qaarkood waxaa laga yaabaa markuu aad background-iga uga shaqeynaya inay meeshan timaado 100%. kolka computer-ka uu kululaado, kolka waxaa loo baahan yahay kuwan background-iga ka shaqeynaya inaad iska xidho. waa inuu 20 iyo 30 iyo wixii ka hooseeya waa inay memory-ga kolkaas oo kale ay cunayaan oo kale. laakiin iska ilaali inaad xidho Windows-ka iyo CPU-ga iyo meelaha ay ku qoran tahay. Windows-ka kale haddaan hoos u soconno kanoo kale haddaan xidho ku leeyahay console ama Windows hoostoo kale shaashaduna way madoobaanaysaa, waana is xidhayaa. sidaas ayaa loo xidhaa. waxaa la yiraahdaa taskbarka ayaa la imanayaa, then software-radan background-iga ka shaqeynaya oo Windows-ku ku jirin ayaa la iska xidhayaa. intaa waxaan ku daraynaa Windows-ka sidii update-ka looga xidho. Windows-ka update-ka haddaan fiirino waxaan imanayaa Windows-ka ayaan imanayaa. Windows-ka markii aan imaado waxaan tagaynaa setting-gida ayaan imanaynaa. setting-gida markaan imaado update security ayaan imanayaa. hadda Windows-kii update ayaa ku socda oo waa kan status-ka wuxuu leeyahay wuu download gareynayaa, update ayaa ku socda. haddii aan rabno inaan update-ka iska xidhno waxaan imanaynaa control panel-keena ayaan tegaynaa. control panel-ka markii aan soo kiciyo halkan ay ku qoran tahay view by ayaan category-ga waxaan ka dhigayaa large icons ayaan ka dhigayaa. then waxaan imanaynaa halkan ay ku qoran tahay administrative tools-kaas ayaan click lahaa. then hoos ayaan u soconaynaa, halkan surface ay ku qoran tahay ayaan imanaynaa, surface-kaas ayaan click dhahayaa ama double click kolba mouse-kaaga soo ku shaqeynaya. one click-na waa laga yaabaa inuu mouse-ka ku shaqeeyo, double click inuu ku shaqeeyo ayaa laga yaabaa. hoos ayaan u soconayaa, Windows W ayaan taabanayaa si aan Windows u gaadho. Windows ayaan hoos soconayaa, waxaan raadinaynaa Windows update meel ay ku qoran tahay. Windows update meel ay ku qoran tahay waa kan. Windows update hadda waa running uu shaqeynayaa oo Windows-ka markasta oo khad ku xidhmo update-ka automatic ayuu soo xidhayaa. automatic ayuu update gareysmayaa. marka dadka qaarkood waxay jecel yihiin inay Windows update-ka ka xidhaan. marka haddii aad u baahan tahay inaad update ka xidho, right click ayaad leedahay. right click markaad taada stop taas ayaad tagaysaa. stop markaan dhaho Windows-keena xaggan furan, Windows-kan aan soo furno aan status-ka markaa fiirino, Windows-kan wuu is xidhayaa oo casiin ayuu noqonayaa. kolkaan Windows-kani ayaan ku noqonayaa, waxaan leeyahay right click then stop ayaan leeyahay. stop markaan dhaho Windows-kii wuxuu noqday hadda manual ayuu noqday inaan update u diro mooyaan asagoo automatic soo ma dirayo. haddii aan setting-geena ku soo noqono waa kan Windows-keena wuu xidhan yahay, khad haddaan ku xidhno ma update gareysmayo ilaa Windows update-ka aan ka soo qaada. inaan Windows-ka update-ka ka xidho waxaan rabaa inaan soo furo, waxaan ku noqonayaa surface-kayga ayaan ku noqonayaa, then right click ayaan dhahayaa. right click markaan dhaho start ayaan dhahayaa.
starti ama restarti kolba marka ku shaqeysaba startigaas ayaan ku dhufanaya hadda then hadda waa running uu shaqeynaya settingena haddaan kusoo noqdo aan dhaho retry haddaan dhaho waxa windowskii sidii saxda ahayd ayuu kusoo noqday halkaas ayaan ku hakinaynaa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.